يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. درسينو ما أنت حكب اللابنا آيات صدن يا أفراد سورة البقرة. الله وحليه سبحانه وتعالى: وإذ قلنا أي واذكر حس أشاك ونبي محمد وضدك أي أمد هذا أشاك إذ وقت قلنا آنري للملائكة ملائكتي أن كنري اسجدوا سجودا آدم سجودا فسجدوا أي سجودين ملائكتي إلا إبليس، لكن إبليس متكلا يرهدو أبا أسوى اسكدي ذي سجودي واستكبر وونا اسكبري وكان وحونا هذا إبليس من الكافرين. قال ذا قوة أهمت كمذا أيو هذا. وعن كسو قد جرني تفسير في سورة دي سورة البقرة قارهان دحدا وحن uga jirnay wixii ku saabsanay ka waramidii laga waramayay Aadam alayhi salatu wasalaam iyo abuurkiisa ahwaashi oo soo maray iyo markii la abuuray wixii dhacay. Nabi Aadam alayhi salatu wasalaam carra laga abuuray. Allah subhanahu wa ta'ala marka uu sheegay malaa'ikta inuu Aadam dhulka ku abuuri rabo, na malaa'iktu arintaas dooday ka keeneen. kadibna waa laga qanciyay malaa'ikta doodii iyo wixii arintaas ay ka qabeen. kadib Allah subhanahu wa ta'ala si uu Aadam fadligiisa u muujiyo ayaa Ilaahay malaa'iktii wuxuu amray inay Nabi Aadam u sujuudaan alayhi salatu wasalaam. sujuudan Aadam inay u sujuudaan la amray waa midii foolka dhulka la dhigayaa mase waa sujuudii salaanta aheed oo xoogaa madaxa la raaricinayay. labadaba waa la yiri. xilligaasna in Nabi Aadam alayhi salatu wasalaam malaa'iktu ay u sujuudaan cibaado Ilaahay la caabuda ayay ahayd. Ilaahay ayaa saas ogolaaday, saas amray, raalli ku ahaa. laakiin diinteenna Nabi Maxamed lagu soo dejiyay alayhi salatu wasalaam waa lagu mamnuucay cidaan Allah subhanahu wa ta'ala in loo sujuudo oo foolka dhulka loo dhigo oo anke lagu salaamo sujuud iyo madax raaricin. Salmaan al-Farisi saxaabiga la yiraahdo markuu nabiga u yimid alayhi salatu wasalaam ee uu damcay inuu nabiga sujuud ku salaamo, nabigu alayhi salatu wasalaam arintii waa ka diiday. cidaan Allah subhanahu wa ta'ala in loo sujuudo ma amrayo nabigu alayhi salatu wasalaam. cid hadaan amri lahaa inay cid u sujuudana islaantan waxaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo, laakiin ayadaan la ogolayn laftirkeeda inay ninkeeda u sujuudo. sujuuda marka waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala. laakiin xilligaas arintaanu waa ay banaaneed. waxyaabihii la nasakhay oo diinta Nabi Maxamed lagu soo dejiyay alayhi salatu wasalaam lagu nasakhay ayayna arintaanu kamid tahay. wax badan oo marka dadka qaar kood hadda ay sameeyaan sharcigeena waa ku munkar. waxaas ay kamid tahay markii madaxda la salaami tago kale, kaaba qabiilada la salaami tago kale, uwaasiyada la salaami tago kale, culimada la salaami tago kale, foorarsiga la foorarsanayo iyo rukuucda la rukuucayo iyo laalaadinta madaxa la laalaadinayo. waxaas oo dhan waa waxaan sharciga waafaqsanayn. nooc sujuudi kamida weeye waxa saasuhu iyo inaad qof bini aadana isku khuduucido isku duleeydo wax sax ma. waxa kale oo akhtaadaas ay ka dhacdaa askarta markay salaanta bixinayaan oo ay madaxdooda salaanta siinayaan oo salaanta u saarayaan. waxyaabaha ay sameeyaan qaar kood waa khalad, waana waxyaabo gaalada laga soo minguuriyay. nooc sujuudahana ku jira iyo isku khuduucin bani aadam la isku khuduucinayo
askarigu waxaa la arkaa markuu madaxdiisa arko inuu gacanta saas yidhaahday halkaas saarto kadibna uu saas yidhaahdee foorarsado ee madaxa raariciyo wuxuu madaxa u raaricinaana waa makhluuq iyo bini aadam asagoo kale ah askarigu madaxdiisa ka amar qaato laakiin wixii ilaahay uu lahayo waxba ka siinin xilligaas laakiin arrintaanu arrin sharcigu ogol yahay ayay ahayd sharcigii xilligaas jiray nabi aadam calayhi salaatu wasalaam marka malaa'igtii waxa la yidhi u sujuuda malaa'igtii marka waa sujuudeen amarka ilaahay ayay qaateen laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna kuwii la yidhi weeye malaa'igtu amarka ilaahay ma diidaan sujuuday la wada daateen ibliisoo laakiin malaa'igta ku dhex jiray ayaa sujuuddii iska diiday aadam oo u sujuudaayey oona uu iska kibriyey ibliisna malaa'igta xaqiiqatan ka mid ma ahayn maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih kaana min aljinni ayaa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala ibliis wuxuu ka mid ahay jinniga ayuu ka tirsanaa malaa'igtu iskaga dhex jiray iskaga dhex noolaa laakiin xaqiiqatan isagoo wuxuu ka soo jeeday jinniga wuxuuna ka abuuray deb sida jinniguba debka u abuuran yihiin meesha malaa'igtu ay ka abuuran tahay nuur iyo iftiin ay ka abuuran tahay marka malaa'igtu ku dhex jiray isagu laakiin malaa'igta ka mid ma ahayn waa uu diiday inuu u sujuudo nabi aadam calayhi salaatu wasalaam amarka ilaahay inuu qaato waa uu diiday ana khayrun minhu yuu yidhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiinin anigana dabaad igala abuurtay asagana waxaad ka abuurtay wax la yidhaahdo dhoobay debna waxaa fadli badan debkaa fadli badan allah marka wuxuu yidhi waid qulnaa ay wadkur xus id waqti qulnaa aan niri lilmalaa'ikati malaa'igtii aan ku niri usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda ee fasajaduu ay sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa laakina ibliis midka la yidhaahdo abaa isagu waa uu diiday inuu sujuudo wastakbara wowna iskibriyo wuu isla weynaaday oo wuxuu quursaday aadam wa kaana wuxuuna ahaaday min alkaafiriina gaalada mid ka mida ayuu noqday saasuu ku gaaloobay ilaahay amarkiisa inuu qaato iskala weynaaday ciil cadaabtiyaan ka doortay uu yidhi intaan aadam foolka dhulka u dhigi lahay ama isku khuduuci lahaa isagoo dhoobo laga abuuray anna dab lagaga abuuray waxaa iga fiican inaan amarka ilaahay inta diido cadaabka ilaahay iska galo wa qulnaa markaas kadibna waxaan nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaadu xawaa ah aljannata jannada dega wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeedana ragadan cunitaan waasica xaytu shi'tumaa meel walbood jannada ka doontaan jannada midheeda ka gurta walaa taqrabaa ha u dhowaanina laakiin haadihi middaan ashajarata ee shajarada iyo geedka ah oo fatakuuna aad ahaataan markaas min adaalimiina kuwa daalimiinta kuwa ka mida aad noqotaan ibliis markuu diiday sujuuddii aadam loo sujuudayay calayhi salaam allah subxaanahu wa tacaala waa uu lacnaday ibliis waana uu carooday jannadana waa laga soo ceyriyey malaa'igtana waa laga soo dhex saaray aadam iyo xawaana waxaa la siiyey digniin oo waxaa la yidhi ibliis waa cadowgiinna ee cadowka dhigta is-ilaaliya yowsa idin fasahaadin yowsa idin waswaasin iska jira ibliis deegaankoodiina waxaa laga dhigay jannadiyaa laga dhigay jannadaasu ma jannatu cadnin ayay ahayd iyo jannada qiyaamaha jannada la geli doono miyay ahayd oo samada ku taalla mase aseendo adduunyada ku taalla ayay ahayd culimmadu waa isku khilaafaan sida adilada daahirkeedu ay sheegeena waa in jannadaas ay ahayd jannadii allah subxaanahu wa tacaala oo jannadii weyneedoo jannadii qiyaamaha inay ahayd iyo midii samada ku tiille aadam marka waxaa la siiyey digniintaas oo waxaa la yidhi adiga islaantaaduba jannada dega meel walboo jannada ka mid ah iyo geed walboo geedaha jannada ka midana mirihiisa iska gurta markii laga reebo hal geedoo geedaha jannada ka mid ah geedkaas ka ilaaliya geedkaasuu magaciisii iyo geedkuu ahaa qur-aankuna ma sheegin sunnada nabiga ka sugnaatana calayhi salaatu wasalaam ma sheegin wax macnaahoo gaarahoo noogu sugan ama nooga xidhan geedka magaciisa inaan aqoonnana ma jiraan isku kallifi mayno marka oo isku dhibi mayno isku feera jebi mayno inaan geedkii magaciisii aan raadinno ama aan sheegno geedkii ayaa shaydaan wuxuu ku waswaasiyey cuna markii dambena waxaa dhacday inay geedkii cuneen sida soo socota ilaahay marka wuxuu yidhi waqulnaa waxaan nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka islaantaaduba dega xawaa ah aljannata jannada dega aadam markii la abuuray calayhi salaatu wasalaam oo naftii la geliyey ciidna laga abuuray ayaa aadam wuxuu u baahday wehel soo wehel u helo ayaa feertiisa waxaa laga abuuray xawaa xaasna waa looga dhigay kadibna dadka intii ka dambeeyday ayaga waxay ka farcanmeen oo ay ka tarmeen
aadam iyo xawaa dadkuna waa afar qaybood qayb aan aabba iyo hooyo midna aan lahayn iyo qayb aan aabba lahayn iyo qayb aan hooyo lahayn iyo qayb aabba iyo hooyo iska dhaleen waana dadku intii u badan yihiin saddexda qaybood oo hore waa qof qaybta aan aabbaha iyo hooyada lahayn waa nabi aadam calayhi salaatu wasalaam saciida laga abuure qaybta aan hooyada lahaynna waa xawaa si aadam feertiisa laga dilaaciyay hooyo ma dhalin hooyo ma foolan qaybta aan aabbaha lahayn laakiin hooyadu ay dhashana waa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam dadka marka intii saddexdaas ka soo hartay aabba iyo hooyo ayaa iska dhalay allah marka wuxuu leeyahay wa kulaa cunana minha jannada wax ka cuna ragadan cunitaan waasica oo saa doontaan jannada wax uga cuna xaytu shi'tuma meel walbo jannada aad ka doontaana ka cuna miraheeda wala taqraba laakin haw dhawaanina haadihi tan ee ashajarata geedka oo fatakuna aad ahaataan markaas min adh-dhaalimiina kuwa dhaalimiinta ah oo naftooda dulmiyay oo ilaahay ku caasiyay kuwa kamida aad noqotaan saadna dhaalimiinta uga mid noqon iyo kuwa ilaahay ku caasiyay subhanahu wa ta'ala halkan geed iska ilaaliya faazallahuma wa awsimbiririxiyay labadoodii ash-shaytaanu shaytaan anha ay bisababiha geedkii sababtiisa u simbiririxiyay oo dambi u galiyay fa akhrajahuma kadibna labadoodii wuxuu ka soo saaray mimma shaygii kaana ay ahaayeen aadam iyo xawaa fiihi dhexdiisa ay ku sugnaayeen oo jannadii ilaahay ah wa qulna waxaana niri ihbitu hoobta ba'dukum haal qaarkiin li ba'din qaarka kale aduwun aw adu iyo cul u yahay walakum waxaan idin sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa waxa idin kugu sugnaaday mustaqarrun makaanu sugnaasho iyo wa mataa'un iyo raaxo ila hiinin ila waqtiga dhimanaysaan laga gaarayo shaydaan markii la lacnaday jannadiina laga soo ceyriyay ilaahayna uu carooday ahlu naar inuu yahana lagu xukumay arintaas waxa uu ku muto oo dhanna ay tahay diididii oo amarka ilaahay diiday amarka ilaahay ku saabsanay aadam inuu u sujuudo wacad wuxuu ku maray aadam iyo durriyadiisaba inuu asaguna oo waswaasinayo oo fidnaynayo oo luminayo dad badan oo naarta ku wehliyana oo ka kasbanayo ka shaqaysanayo shaqadii saasaheed iyo wacadkii saasahay oo uu maray ibliis waa uu bilaabay wuxuuna ku bilaabay aadam iyo xawaa wuxuuna ku waswaasiyay wax ku saabsan geedkii geedaha jannada kamid ahaa oo la yiri aadam iyo xawaa ha u dhawaanina oo ha cunina la yiri markaas wuxuu yiri geedkan ma taqaaniin waxa la idin kaga reebay inaad cuntaan waxa la diidaa uu yiri inaad laba malag noqotaan hadda dadaad tihiin laakiin geedkan hadii la cuno malaga lagu noqdaa laba malag inaad noqotaan la idin diida hadda waad dhima doontaan laakiin geedkan hadaa cuntaan ma dhimanaysiin cimri dheeriyo uu leeyahay waligiin waa noolaanaysiin geedkan hadaa cuntaan si marka aadna waligiin u noolaan malaa'igna aadnan u noqon ayaa geedkan la idin kugu diiday hadaad geedkan dhimidaan carabka saartaana laba malagna waa noqonaysiin waligiinna ma dhimanaysiin ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين يقول إن الله بملك نغتان ديد ما ليدين ديدا هاجيت كان ليدين كقرب ويري أما أدت كواره هو اللي قلت يوجا إن نغتان ديد ما ليدين ديدا كدبنا أرنتي دارو وأتكي سورة الأعراف إنه ما دونتا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين كتاب فربضان مرة وحير والله يساس أنت كلارت oo yiri waxaan ahay mid adinka idin naseexaynaya dantiinaan ka shaqeynaa cilmi waa ogtihiin oo cilmi fara badan aan leeyahay malaa'igta waa dhex joogi jiray wax badan aan ka warqabaa geedkan cuna geedkan dantiinaa ku jirtee hal mar dad cuntaan laba mar isku bedelaysiin kadibna warkii saas ahay aadam iyo xawaa way ku sirmeen geedkii oo cuneen geedkii markay cuneenna wixii dhacay ayaa dhacay الله وحده سبحانه وتعالى فأزلهما وأوسم بريحيي لبدودي وآدم يحواء الشيطان شيطان أياسم بريحيي واسم بريحيي وحلقة وضع لبتو بحيي دنبي أيو دحتين بيو دنبي ودحقلي عنها أي بصوابها شجردي يجيت كي سببتت أيو أسم بريحيي وكسم بريحيي فأخرجهما لبدودي وكسو صار حواء يا آدم
مما كان وحي أيه كسر صار حقه ذا فيه يكون أحسن نايانه جنة إلهيها وقلنا أنه نوحى نري اهبطوا هاب تمركه آدم يحواء يوحي إذا الله صعدوا بعضكم حال قبل كين لبعض قبل كلا عدو أو عدوية على قوضها اللي يري آدم يحواء إبليس أيها وحى يري سماذا كوذ الدقة جنة إلهي كوذ الدقة كوذ بحث جنة علماء قال مركو وحي دهان إبليس مركو هراء jannada waa laga soo saaray oo markuu gaaloobaba waa la soo cayriyay waxa hadda jannada soo galiyay waxay dhan waswaas ku yimid saadarteeda waxa leeyahay adinka iyo ibliis ba isla baxa isla dareera qaar waxay dhahan xayawaanka qaar kamid ah inuu isku soo ekeysiyay laakiin sanad saxiix ma leh arintaas culimada qaarna waxay dhahan waxa lala warramaha wax loo jamcinahay waa aadam iyo waxa aadam noqon rabo ayaa laga warramaa aadam iyo xawaa maadaama dad badan ay ka farcan min rabaan ayaa waxa leeyahay reer aadamow ka dega samada iyo jannada ilaahay ka dega dhulka dega marba hadaad ilaahay caasideen subhanahu wa ta'ala oo samadii iyo cirkii ilaahay ku caasideen oo jannadii ilaahay idinku jooga ilaahay aad caasideen oo ilaahay amarkiisii aad khilaafteen ma mudnidin inaad samada sii deganaataan jannada ilaahay inaad sii deganaataan oo ku sii jirtaan ma mudnidin dega dhaadhaca dhulka dega deegaankiinu hadda kadib waa dhulka waxaana leedin sheegaa hadda kadib in col idin dhex mari doono hadaad tii reer aadam oo isnici doontaan oo cuqdad isku qaadi doontaan oo xiqdi isku qaadi doontaan iyo xasadnimo oo aad diriri doontaan oo isdhaawici doontaan oo isdili doontaan oo isbarakici doontaan waa sida hadda jirteen awalna jirtay jirina doonteen markii ilaahay wuxuu yiri waqulna waxaan ihbut hoobta ba'dukum hal qaarkiin li ba'din qabalka kale caduun oo cadu u yahay ولكم أذن كانوا واحد يسقنا ذي في الأرض يقول كده حيس إذن كوسقنا ذي مستقر مكانه سقنا شو هذا كذب غير آدم ديجان كود وارلك يوم متاع لك واحد كوسقنا ذي راحوا إلى حين إلا وقت اللي جاروا اللي يدين راحين أيوه وقت قاسوا وقت غفل بعيد ما نيسو إلا أتكجار إنسان أياد الدنيا ده نعف كده كل راح إنسان عيد والبنا مركي وقت أيد ما هذا اللي جاروا نفته هرلو جتشيده فتلقى وأولك المي وواو كقاتي آدم من ربه سوحو كبرتي كلمات فتاب عليه إلهي واو كتوب أقبلي آدم إنه محيي الإلهي هو أسوأ التواب والله توب أقبل كبضا الرحيم إن حريستنا بضا نبي آدم عليه الصلاة والسلام مركو خلط كي قلي خلط كي إله هو التوبة كانت إلهي ينوحو بري سبحانه وتعالى كلمات أو إلهي أقصى الله بتو كلمات كيونا أخري كلمات كسورة الأعراف إنه ما دونا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي دهن إلهينا سبحانه وتعالى توبدي وكاقبلي إلهي مركوحوري فتلقى وأولك المي آدم فتلقى وأوقاتي آدم فتلقى وأكبرتي آدم من ربه سبحانه كل مي أو كقاتي أو كبرتي كلمات وكلمات كسورة العراف نوي ما دونا فطاب عليه إلهي آدم وكتوب أقبلي إنه إلهي هو سوى التواب الرحيم الله التوب أقبل كبضن ونحريست بدن أيوة هذا قلنا مركا وحانري بيطوه هوبتا من هاج نذا كهوبت أو كهوبتو كدجا جميعا دمانتين فإن يأتينكم هدو ذي مادو فمن تبع عدي راعدا هدايا أنيق هنون كيغا فلا خوف وحبسيه عليهم دشوذا ما أهان ولا هم من أهان يحزنون كوي مرقا يوتيران يوناي والذين كوي كفروا قالوا بي وكذبوا بيني بآياتنا آيات كينا بينينا أولئك قواسي أصحاب النار ونار أصحاب تيدي هم أيون فيها النار تدحيدا أي خالدون قوارايان الله سبحانه وتعالى وعوشيغي آدم يحواء markii ilaahay ku caasiyeen samadii iyo jannadii dhexdeedii geedkii laga reebana shaydaan oo cunsiiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala xukun ku riday xukunkaas oo ah inay jannada ka dagaan waxyaabihi kale lagu xukumana waxa kamid ah suurada kale noogu imaana in ilaahay subhanahu wa ta'ala cawradoodii uu muujiyay oo awal hore u qarsooneed kadibna waxa la yiri samada iyo cirka ka daga waxaana la yiri reer bani aadam waxaad ogaatiin inaan rasuul idin soo diri doono rasuushaas iyo khayrkaas markay idin yimaadaan
ciddii khayrka iyo wanaagga raacda iyo fartiintii aan u soo dhiibay ambiyada ilaahay ciddii rumayda ciddaas wax cabsiya iyo wax tiiraanyaa korkeeda ma ahaanin waa cid ahlu khayr ah adduuniya aakhiraba ilaaha raalli ka ah kii laakiin ambiyada ilaahay ku gaalooba oo xaqa beeniya waxaa u yaalla adduunyadana ciqaab aakhiradana cadaab ilaahay iyo naar jahannamo oo weligood ku jiraayo oo weligeed ku jiraa ayaa sugaaya allah marka wuxuu yidhi qulnaa waxaan nidhi ihbituu hoobta aadam iyo xawaaw iyo carruurtiinnuba minhaa jannada ka hoobta jamiican dhammaantiin faimaa ya'tiyannakum ay fain ya'tiyannakum hadduu idin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun idinkaga yimaado iyo rasuul iyo kitaab aan ku soo dejiyey faman tabica ciddii raacda hudaaya aniga hanuunkayga falaa khawfun calayhim ciddaas korkooda wax cabsiyu ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna kuwa murgaahoo tiiraanyoonaana ma ahaanin wax ku soo fool leh ma ka baqayaan waxay ka soo tageenna ma ka tiiraanyoonayaanoo ma ka murgaayaan waladiina kuwii miyaad rabtaa laakiin kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna dadku labay u noqonayaan markii rususha ilaahay u soo diro cid rususha warkeeda raacday ciddaas waa ciddii hore looga soo warramay oo falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna la yidhi iyo cid rususha warkooda ku gacan sayrtay ciddaasna ilaahay wuxuu yidhi waladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari waa naarta asxaabteedii hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda ayay khaaliduuna ku waaraayaan yaa banii israa'iila ilma israa'iilow udkuruu xusuusta oo sheega nicmatiya aniga nicmadayda xusuusta oo sheega allatii nicmadii sheega ancamtu calaykum aan adinka idinkugu nicmeeyey wa owfuu fuliyana bicahdii aniga ballankayga uufi anigu waan fuliye bicahdikum ballankaan idinka qaade wa iyaaya aniga keligayna farhabuunii iga cabsada meeshaan waxaan ka gudagelaynaa wax ku saabsan qisadii reer bani israa'iil israa'iil waa nabi yacquub calayhi salaatu wasalaam nabi yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim calayhi salaam yacquubna 12 wiil ayuu dhalay oo uu nabi yuusuf ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam reer bani israa'iil marka haddaad maqasho waxay ka soo jeedaan oo ay ku abtirsadaan oo ay galaan nabi yacquub calayhi salaatu wasalaam nabi yacquub laba magacuu lahaa magac waa yacquub magaca kalena waa israa'iil reer bani israa'iil haddaad marka maqasho waa carruurtii nabi yacquub inta badanna cidda loola jeedaa waa yahuud suuraddu waxaan sheegnay inay madiiniyad tahay qaybo badan oo suuradda ka midana magaalada madiina nabigu markuu yimid calayhi salaatu wasalaam qur-aankii ugu horreeyo ku soo degay waaye magaalada madiinana dadkii nabigu ugu yimid calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah yahuuddii ayaa marka lala hadlaa magaalada madiina joogtay markaasaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa banii israa'iila israa'iil carruurtiisiiyey iyo yacquub carruurtiisiiyey udkuruu xusuusta oo sheegana xusuusta nicmatiya aniga nicmadayda xusuusta oo ilaahay uga shukriya ama udkuruu sheega nicmatiya aniga nicmadayda sheega oo ka warrama wamaa binicmati rabbika faxadid oo kala waay allatii nicmadii sheega oo xusuusta ancamtu aan ugu nicmeeyoon ugu barwaaqeeya calaykum dushiinna nicmooyinkii ilaahay reer bani israa'iil u galana aaday u fara badnaayeen nicmooyinkaas waxaa ka mid ah usoo diriddii nabi muuse iyo nabi haaruun oo isla dhashay loo soo diray markii koobaad iyo ka badbaadintii cadaabkii fircoon iyo ciidamadiisu ay ku hayeen laga badbaadiyey reer bani israa'iil iyo baddii dhambaliddii loo kala dhambalay reer bani israa'iil markii laga badbaadinayey fircoon iyo ciidamadiisii iyo tiiha markay ku jireen iyo wareerka mannigii iyo salwihii alla uu siinayey subxaanahu wa tacaala iyo caadkii qoraxda looga walanbaynayey nicmooyin fara badana marka alla u galay wa owfuu fuliya oo dhammaystira bicahdii aniga ballankaygii aad ila gasheen ballankii allah la galeen waa maxay subxaanahu wa tacaala ballankii allah la galeen wuxuu ahaa inay ilaahay ateecaan ilaahay wixii uu farana fartoomaan ilahay wixii uu ka reebana ay ka haraan kitaabkii towraad ahaa oo nabi muuse ilaahay uu ku soo dejiyana si quman ay ugu dhaqmaan kana run sheegaan waxyaabihii kitaabkii towraadaha ku yaallay oo lagula ballamay inay fuliyaanna waxaa ka mid ahaa inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyaan iyo kitaabka nebi maxamed lagu soo deji doono calayhi salaatu wasalaam inay rumeeyaan oo ay qaataan wa owfuu oofiya oo fuliya oo dhammaystira bicahdii aniga ballankayga reer bani israa'iilow
aan idin la galay uufi anna an uufiyo bi'ahdikum ballan kan idin ka qaaday oo hadaad kaas firidaan kii aan idin iri waa idin firina oo ah inaan amaal mar fiican idin ka amaal marina wanaagaas Allah timaadeen anna waa idin firinahay wa iyaaya aniga kaligayna farhabuni iga cabsada oo cid kale ka cabsanina waxyaabay ku baleysnaayeen waxa kamid aha ayaga kala cabsan jiray nabi maxamed inuu nabi ilaahay yaa waa cadaatay kitaabka nabi maxamed lagu soo dajiyay kitaabkii quraanka ahay oo ilaahay oo ku sheegay kitaabka tawraada inuu yahay way ogaadeen laakiin qolo walba qolada kale ka cabsaneen ama lagu caaya ama lagu welduwa ama lagu takoora ama qoomkaadu ay wax ka sheegaan qof walba uu isleeda markaas xaqi rumay waayay waaminu rumayana bima shaygi anzaltu an soo dajiyay musaddiqan hal shaygaas uu yahay kii rumaynaya lima macakum adinka miciina wixii ahaa wala takunu hana ahaanina awwala kafirin qolo gaalowda qoladii ugu horeeydo bihi quraanku gaalowda wala tashtaru hana iibsanina bi aayaadkayga ku iibsanina thamanan dheef oo qaliilan yar وإياي أنا كليجينا فاتقوني إسكتشرا أو إجابقة وحكروا الأمري كتابك إلهي وسودتشي ونبي محمد كسودتشي إني رميان كتاب كصول الشيء أو إلهي أو الشيء سبحانه وتعالى إنه يها كتاب رمينايا كتابك التوراة هاي أيوه يقانين أو التوراة المامتي أو كتابك كتب المامي قرآن كا أي قرآن كتب المامية ويوجيه القرآن كإنه يها قرآن كالتوراة لقول أنا إلهي أوديك سبحانه وتعالى إني نقدان أهل كتابك قلاد أوه الرئيدو كتاب قالوا ذا هو مدينة شوق إني نقدان اللي قديك وحنا اللي يري آيات كيجا هكو يبسننا لافير يا العجير يهود وحي لها يعني من علماء داس مدحدو ذا يا هديوين يا العكس يجري يا تجارتو ذا يا عامدو ذا وعيس إلى هذه المركة هدي عاد محمد رميدان عليه الصلاة والسلام madaxtinimadii iyo boqortinimadii aad ku haysateen reer bani Israa'iil dhexdooda waad weynaysaan siyaarooyinkii leedin keeni jiray waad weynaysaan lacagtii leedin sii jiray waad weynaysaan madaxtinimadii aad madaxda ahaydeen iyo sheekhi leedin ka daba dhigi jiray waad weynaysaan islaan markaas ay waxay dhaafsadeen aayaadkii Ilaahay waxay dhaafsadeen oo isiisteen wax yar oo dhaaf ah tilmaantii markaa نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولها أما كتاب القرآن كهو أولها أو توراة كتيلي وإدوريين وابا بدلين مركز واحد دهان كتاب كي لو شيء إنه لسود جدونه يا رسول كي لا شيء إن لا صادر دونه توراة لو شيء كان معنا دهان تلمامي قارن ويبدلين الله مركو عليه وآمنوا رمية ربنا إسرائيل بما كي رمية أنزلت أن سودتي مصدقا حاله يا كي رمينا يا كاسي لما معكم معنا وحى هذا التوراة ديدي ما يلا كتاب ولا تكونوا هننا يهود مدينة دجني أول كافر فريق قالوا أي أول فريق كافر فريق قالوا كوري وبه قرآن قالوا به النقننا أورير بن إسرائيل أما أهل كتابه مشركين وإذن كوري دي قرآن قالوا ذا ومكي تشوجين لكن رير بن إسرائيل أهل الكتاب قرآن كقالوا به كوري لمكينا رير مدينة وهنقننا ولا تشتروا هنا إبسننا آيات كيجا قرنتو ذا كو إبسننا يترتر كودا ثمنا داف أو قليلا ير العجير وحا لغا ودا وحو البوء الدنيا ود حقنا قريدو سيستو اما الدين الهي سيستو ووح اد وير الدنيا دو دنب وحو هرداي ربان هنقدينه وإياي أنيقا كاليقين فاتقوني إقبقا أيها إلهي ليه سبحانه وتعالى وحيابك لنا والله قرسيها الله أهل كتابك لكن درسي إنما أنت هلكا سنوجوه والله سبحانه وتعالى على وعلم وبالله التوفيق. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. كوكوما قصبايو إنات فافيسو بلسي الله دركي كفافي